25 ديسمبر diinlaawayaashii Scandinavian-ka ku noolaan jiray waxay u dabaaldegi jireen wax yuulka la yiraahdo Jarmalka iyo kuwaasina waxay u dabaaldegi jireen Saturnalia wax la yiraahdo ilaaha cadceedda iyo ilaaha beeraha baa loo dabaaldegi jiray qolana waa ilaaha beerta god of agriculture qolana waa ilaaha cadceedda ama se cadceedda loo dabaaldegay inay soo noqoto waa waqtigii 25 December waa waqtigii qaybahaasi madowga galaan ee maalintu yaraatay habeenku bato marka waxa la weydiisanayaa inuu soo noqoto cadceeddaas kaasi waa theory-ga ugu badan waxay leeyihiin oo hadda maalin gaaleed bay ahaydee wadaadadii hore kristankana waaba kuwa maagay celebrationska birthday oo dhane maxay kuwan dambe u aqbaleen waxay yiraahdeen waxa loo aqbalay maalmihii markay kristanka qaateen bay yiraahdeen war maalmahoodii ay dabaaldegi jireen aan maalinta bedeluno nirahna waa maalintii ciisa dhashay oo shaqo kristan aan sameeyno halkii ay shaqada sanamka la caabudo ama cadceedda la caabudo ay wadeen aan ku beddelay cibaadad masiixiye bay yiraahdeen taariikhda markaynu dib ugu noqono markaas masiixiyiintii noolaa waqtiyadaasi waxay u arkayeen inay tahay caada wathaniya oo aanay bannaanayn in la dabaaldego waxa cajiiba markaa maharajaan katholigu ay sameeyaan waxa ku saabsan oo dhan qoliyaha kale waxay u qabaan inaanay bannaanayn dhan kale markaan ka eegno waxyaabaha la sameeyo oo ah maalan in wax la bixiyo waxbixintani xagee ka timi waxbixintani waxay ka timi imbaraatoriyadii romanska ka horeysay tan December maadaama ay cibaadaadkooda sameyn jireen waqtigaas ay wax bixin jireen kiniisadda kaathooliga waageedii hore mamnuuc bay ka dhigteen waqtigaas sadaqaadka la bixiyo 25 December iyo waxa kale wax la bixiyo bari dambe alquruun alwasطaya ayay ogolaadeen intii hore waxay lahayn waa caado wathaniya ayaan la bixinin waxa kaloo jira wadaad Kristino Armenian oo Nicola la oran jiray Nicola ayaa barigii dambe quruun alwasطa middle age markii la joogay ayuu habeenkii sadaqa intuu la gudo ayuu dadka siin jiray mar dambe oo qarnigii 19aad baa nin shaacir oo Mareykan gabiyay dabeetana isaga gabayga ku sameeyay ninkan maryaa cascasita ee gadhka cad leh ee maryaa cad leh ee bahasha yar ee ghazaaladu maxaa la yiraahdaa deeradu ay jiidaysay caruurta intuu wuxuu qaybiyo habeenkii meesha ka soo ridaa gabiya Mareykan baa waadanba samaystay idan caado jirta maaha geedkan kristanka ee la taago waa geedkii wathaniyiinta Jarmalku ay taagi jireen idan caadaadka meesha lagu sameeyo dhami waa caado kuwii wathaniyiinta ee diinlaawayaasha hore ay sameyn jireen haddaba qoladii kristanka ahayd waxay leeyihiin hore wax bannaan maaha hadduu kristanku halkaa ka taagan yahay innagu markaa inaynu dabaaldegnaa oo Christmasnimo u dabaaldegnaa ma bannaanta su-aashu waa taas inaynu innagoo muslimi dabaaldegno oo u dabaaldegno ciid wathaniya oo wadaadadii kristanka qaybo badan oo ka mid ah ay leeyihiin waa ciid wathaniya ciid xataa ciise dhashay maaha oo si kale haddaynu u nidhaahno been abuura waan ahayn maalintii ciise dhashay siday u badan yihiin warka ay qorayaan maxaa loo dabaaldegayaa markaa ma waxaad dabaaldegaysaa maalin ay qaar intay been abuureen oo bidca agtooda ka ah haddana ay leeyihiin ilaah baa dhashay iyadoo ilaahay leeyahay waqaaluu ittakhada arraxmaanu walada laqad ji'tum shay-an idda takaadu الsamaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu اlardu watakhiru اljibaalu hadda an dacuu lilraxmaani walada wamaa yanbagii lilraxmaani an yattakhida walada xadiidka saxiixaana uu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu yidhi aadanuhu ina aadan wuu icaayaa waanu ibeeniyaa wuu icaayaayo wuxuu leeyahay inan buu dhalay anigoo ah buu ilaahay leeyahay allahu laxadu samad waxna dhalin layna dhalin
waa i beeniyaa oo wuxuu leeyahay soo celin maayo iyadoo aan abuurkii hore abuurka dambe igaga adkay. haddaba ayuha alxiba, sharci ahaan markaan eegno ciidda waxaa la yidhaahdaa waxay ka mid yihiin cibaadaadkay ku jirtaa sida manaasigta kale, qiblada, salaada, soonka iyo wixii la mida. ilaahayna wuxuu qur-aanku leeyay likulli ummatin jacalnaa mansakan hum naasikuun. cid walba wakhti ayaanu u samaynay ay cibaadadooda la yimaadaan. likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri faattabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun. waxaana ilaahay qur-aanka ku leeyay waladiina laa yashhaduuna الzuur, kuwa aan xaadiraynin zuurka. mufasiriin badan baa waxay ku fasireen inay tahay ciidaha mushrikiinta. laa yashhaduuna biالzuur haddii la yidhaha waa kuwaan markhaati beenaalaha sheegaynin, laakiin maadaama aan ba' lagu gudbin bay leeyihin waxay tilmaamaysaa inay tahay kuwa aan xaadirayna ka qayb gelaynin ciid gaaleeda ee nebiguna calayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu inoo tilmaamayaa markuu yimi wuxuu arkay carabtii oo ciidaysa. waa maxay bay yidhi? waxay idhaahdeen waa ciid aanu jaahiliyadeedii ciidi jirnay ansaartii. wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu idinku beddelay mid idinka khayr badan. ciid aladxaa iyo ciid alfitri baa laydinku beddelay. haddii watan jaahiliya uu meesha ku oli jiray lagu ciidi maayo, krismasku watan jaahiliyuu ahaan jiray. waa mar labaad. hadday ciid jaahiliyad ahayd la samayn maayo, krismaskuna ciid jaahiliyad buu ahaa. ciid dadka aan ilaahay rumaysnayna rumaysan awhaanta ciiddoodii bay ahayd. kristanku way kaga daydeenoo way la qaateen. idan waa bidca ay kristankuna soo kordhiyeen, fi shariicana kuma bannaana. saa daraaddeed culammada muslimiinta waxay ku tilmaamayaan inaanay marnaba u bannaanayn dadka muslimiinta ah ciidaha diimaha kale inay ka qayb galaan. krismasku imaa ciid kristan inuu noqdo, hadduu noqon waayana ciid watani buu noqday. kuwa aan ilaahay caabudina wataniyiina oo skandinafiyanka iyo jarmalka iyo aalihada kale caabudi jiray ciiddoodii, ama ciiddii kuwii kristanka noqday ee nasaara. labada ciidood midna ma bannaana diin ahaan inaynu ka qayb galno. ciid watanina ma bannaana, ciid kristanna ma bannaana. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaaةu wasalaam xadiiska saxiixayn ku yaalla naxnu alآakhiruuna الsaabiquuna yowma alqiyaama. annagaa ah kuwii dembeeyey xagga wakhtiga marka laga eego, horreeya maalinta qiyaama oo jannada ugu horgelaya xagga mansilada marka laga eego. bayda annahum uutuu lkitaaba min qablina wa uutiinaahu min bacdihim. hase yeeshee buu nebigu leeyay iyaga kitaabka hortaayaa la siiyey, annagana kadib baana la siiyey. fahaadaa yowmuhum aladii farada allahu calayhim faاkhtalafuu fiih. waa jumcada buu nebigu leeyay ciiddoodii la siiyey ay isku khilaafeena garan waayeen. sabti iyo axaditoona may hayne jimcun baa ciida buu nebigu leeyay. ilaahay baana nagu hanuuniyey. faannaasu lanaa fiihi tabca. dadku annaga ayay khadam iyo tabac noogu yihin oo nagu daba socdaan buu nebigu leeyay. alyahuudu hadan wanasaara bacda hadin. idan inaynu iyaga tabacu noqonnaa ma bannaana. jumcadaa ciid inoo ah, sabti inooma aha. ciid aladxa iyo ciid alfitri baa ciid inoo ah, kuwooda kale ciid inooma aha. sidaa awgeed ayuha alaxiba, gaala isjeclaysiintan iyo gaala ku dayashada tani diinta kuma bannaana. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.